قدومي كحين كواد يقولها شعبك الصوماليات أهنا كسمها قدومي يقولها شعبك مرو سعدية ياسين حاج سمتر قدومي كحين كلوات يقولها شعبك الصوماليات مدن عبد الله أبشرو حبناها يقولها شعبك الصوماليات مدن يا الإمروين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan xanuunka la qaybsanayaa sida xubnihii golaha shacabka ugu horeeyay ay tilmaameen dhibaatadii qabsatay ciidankeenii intii dhimatay Allah naxariisto inta dhaawacana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala caafimaad khayr qabo caajil ah Allah siiyo. waxaan diyaar u nahay wasaaradda ahaan in gudiyada amniga iyo difaaca iyo wasaaradda gaashaandhigaba aan ka wada shaqeyno wixii la xiriira arrinkan oo aan iska wareysano wixii warbixino xaggeena looga baahan yahayna ama horimaasho baarlamaan ha ahaato ama horimaashada gudiyada ha ahaatee diyaar baan u nahay. sida ajandaha aad ansixiseen halkan waxaan maanta u nimid oon idinkaga mahad celinaynaa fursadda aad noo siiseen inaan samayno akhrinta koowaad hindis sharciyeedka hubka Soomaaliyeed. hindis sharciyeedkan wuxuu ka kooban yahay 44 qodob iyo 2 lifaaq. saad ogtihiin xaaladda waddankeenu ku sugan yahay oo amni darrada iyo cadaalad xumada iyo khilaafka iyo dagaalada iyo xasradaha aan dhammaanaynin waxaa saldhig u ah in hubka waddankeena yaala uusan kontrolnayn hal gacan uusan ku jirin xogtiisana hal meel aysan oolin. culayska ka jira hubka iyo inuu baahsan yahay kuma koobna kaliya Soomaaliya ee adduunka oo idil ayuu farabaan ku hayaa. sanadkii 1995 ayay ahayd markii xarunta UN-ka markii ugu horeysay loo soo qaaday dareenka la xiriira xakamaynta hubka fudud iyo hubka yaryar. kadibna bishii May 2001 ayaa la soo saaray protocol looga hadlaya heshiis looga hadlayo ganacsiga daily action. May 2011 wuxuu ahaa protocol ayuu ahaa. kadibna July 2001 ayaa waxaa loo bedelay action plan. kadibna markii la soo gaaray 2012 waxaa la qabtay dood kale oo la xiriirtay si looga heshiin lahaa hubka iyo faafitaankiisa iyo adduunka farada baan ku hayo iyo qaabka loo ganacsanayo si loo nidaamin lahaa. 2013 heshiis ayuu isu bedelay. 4 December 2014 ayuu heshiiskaas dhaqangal noqday. waa adduunka marka laga hadlayo gobolkan Geeska Afrika iyo harooyinka waaweyn oo aan ku noolnahayna waxaa ka jira dagaallo oo aad la socotaan ama dagaaladaas ha ahaadaan kuwa u dhaxeeya dawlado ama kuwa dawladaha dhexdooda ka socda ha ahaadaan. hub aad u tiro badan ayaa gobolkan Geeska Afrika iyo harooyinka waaweynba aad ugu firirsan. iyadana African Unionka ama midowga Afrika markii dib loo habeeyay oo loo asaasay oo la sameeyay waaxda amniga iyo nabadgelyada waxay bilowday inay wada hadal la gasho urur goboleedyada sida ECOWAS oo galbeedka Afrika jirta, COMESA iyo SADC iyo qaar kale oo la mid ah sidii looga wada hadli lahaa xoojinta amniga iyo nabadgelyada ka jirta gobolka kasta Afrika ka mid ah. dadaaladaas waxay ku soo dhamaadeen 2013 markii African Union ay u dabaaldegayeen sanadgoodii 50aad baaqi ay soo saareen oo ahaa in la aamusiyo qoryaha ama hubka oo loo asteeyay 2020 taasoo qayb ka ah dabaaldeg ay u dabaaldegayso African Union markii la gaaro 2063 qaaradda Afrika inay noqoto meel nabdoon oo horumar iyo xasilooni aad u weyn ay ka jirto. dalkeena Soomaaliya marka la soo qaato hubka waxaa nidaamin jiray haysashadiisa ka ganacsigiisa soo dejintiisa isu gudbintiisa xeerka nidaamka guud
oo soo baxay 26 August 1963 laakiin maadaama waddankeena isbeddello waaweyn ay ka dhaceen oo ay ugu muhiimsanayd in dowladdii dhaxaba ay naga burburtay kadibna dib loo soo galay dowladdii hubkiina hadda gacmo badan uu ku jiro loona baahday hubkaas isaga ah in la kontaroolo la ogaado meesha uu yaallo diiwaan loo sameeyo ayaa xeerkan loo sameeyey ama sharcigan loo sameeyey sharcigan marxalado kala duwan ayuu soo maray diyaarintiisa xukuumadda tiro badan ayaa ka soo qayb qaatay maanta ayaan fursad u helnay hortiina inaan imaano xeerkan oon akhrino magaca xeerka waa saan idiin sheegay waa hindisa sharciyeedka hubka Soomaaliya erey bixinuu leeyahay sharxaya erey kasta oo la isticmaalayo ama iib ha ahaado ama dalaalnimo ha ahaato ama hub ha ahaato iyo waxa la midka ah ujeeddada guud oo sharcigan uu leeyahay waxay tahay in la nidaamiyo lana ogaado hubka diiwaanna loo sameeyo cidda ka ganacsanaysa yay tahay cidda haysanaysa yay tahay yaa loo ogol yahay inuu haysto yaa loo ogol yahay inuu ka ganacsado yaa loo ogol yahay inuu soo dejiyo yaa loo ogol yahay inuu warshadeeyo oo soo saaro saanadda ayaa la mid ah hubka la haysan kara waa kee hubka aan la haysan karinna waa noocee marka labadan qodob oo dambe oo ku saabsan hubka la haysan karo iyo hubka aan la haysan karin lifaaqa ayay ku cad yihiin laakiin qaybaha kaleeto oo ujeeddada oo qodobka saddexaad lagu caddeeyey waxay ku faahfaahsan yihiin 41 qodob oo kaleeto oo ka dambeeya 41kaas qodob waxa ay ka hadlayaan waxa ay tahay yaa xaq u leh inuu hubka haysto ama marka taas waxaa ka horeysa ujeeddada baaxadda sharcigan cidda uu taabanayo ama uu la hadlaayo ama uu nidaaminayo waa kuwee sharcigan wuxuu ka baxsan 4 ciidan oo qaranka ay leeyihiin oo ku xusan dastuurka sharcigan isaga laguma dhaqaayo laakiin inta ka baxsan ayaa lagu dhaqaayaa dhammaan jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dhulkeeda ayuuna ka howlgalayaa qodobada waxay kala yihiin xaq haysashada hubka yaa xaq u leh inuu haysto waa kee hubka aan la ogolayn yaa warshadeyn kara hubka cidda loo ogol yahay inay hub haysato ruqsadda hubka lagu haysanayo iyo shuruudaha lagu helayo ogolaanshaha iibka iyo cidda ogolaanaysa in hubka la iibiyo bixinta ruqsadda iyo habraacyada la xiriira shuruudaha isticmaalka ruqsadda codsiga ruqsadda dadka aan xaq u lahayn inay hub haystaan ka ganacsadaan ama qaadaan oo gudbiyaan codsiga ruqsadda dadka aan xaq u lahayn inay codsadaan ruqsadda muddada ay jiraysa ruqsadda cusboonaysiinta ruqsadda iyo habka loo raacayo la noqoshada ruqsadda la wareegida hubka iyo shuruudaha ku xeeran kaydinta hubka lala wareegay iyo cidda kaydinaysa iyo meesha lagu kaydinayo dhisidda diiwaan dhexe oo dalka dhan uu leeyahay kaasoo lagu kaydinayo hubka waddanka yaalla oo aan ahayn kan gacanta dowladda ku jira diiwaan hayaha hubka waajibaadkiisa hadduu yahay heer federaal iyo hadduu yahay heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka mamnuucidda soo dejinta iyo ka ganacsiga hubka daabuladiisa gudbintiisa dalaalidiisa yaan la ogolayn yaase la ogol yahay ruqsadda soo dejinta iyo qaabka lagu helo ruqsadda ama ogolaanshaha gudbinta hubka waajibaadka shirkadaha haysta ruqsadda waajibaadka ka ganacsiga hubka cusboonaysiinta ruqsadda hubka ka ganacsigiisa ama soo dejintiisa ogeysiinta la ogeysiinayo diiwaanhayaha haddii isbeddel uu ku yimaado deegaanka shirkadda ama qofka uu degan yahay iyo wixii kaloo macluumaad ah oo uu bixiyey markii uu ruqsadda qaadanaya haddii isbeddel uu ku yimaado inay mamnuuc tahay hubka in la dalaalo oo cid aan ruqsad haysanin inaysan ka shaqayn karin ama
aysan faraha la geli karin howlaha la xiriira hubka haddii la rabo hub in dad lagu tababaro cidda bixinaysa ruqsadda iyo sida loo bixinayo mamnuucista in la haysto saanad xaddiga saanadda la haysan karo guud ahaan xeerkan maadaama uu yahay ka hadlayo hubka xeerar ka horreeyna ay jireen sida xeerka aan soo sheegnay oo nidaamka guud oo 26 Agost 1963 qodobada aan la socon karin waxaa burinaya xeerkan ama sharcigan ayaa burinaya qodobada u dambeeyo kaloo la xiriirana waxay ka hadlayaan xeerka xilliga uu dhaqangalka noqonayo waa mahadsantihiin waxaan xubnaha golaha shacabka sharafta leh ka codsanayaa in wixii ku saabsan wax ku daris wax ka dhimis ama talooyin ah ay ku biiriyaan annagana waxaan diyaar u nahay inaan qaybteenna aan ka qaadano soo jeedintaas aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh. وعليكم السلام.